السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلان وعن wanaagsan dhamaan akhyaartii nagala socotay kanaalka Sac Software oo alaaba bixiya waxyaabaha ku saabsan ama casharro ku saabsan tiknoolajiyada iyo ICT-ga. idil ahaantiima waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka meela joogtaanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal halkan waxaynu ku qaadan doonaa casharkeenii afraad ee editing-ka loo yaqaano Filmora oo ayaamahan baa inoo socday ama casharadiisuba taxana inoo ahaayeen. casharkeenna afraad waxaynu ku baran doonaa sidee ayaa la isu saaraa text qoraal ah iyo videoga, isla markaana aad ugu sharixi kartaa videogaaga, ugu samayn kartaa qoraal hordhaca oo intaanu qofkaasi barnaamijka guda gelin uu uga bogan karo ama qoraal u sheegi kara waxa soo socda waxa uu ka hadlayo. si aynu u bilowno casharkaasi waxaynu marka hore soo qaadanaynaa videogii, isla markaana waxaynu isku dayi doonaa inaynu qoraal ku darno. haddaba waynaynu codkan ka saarnaa si aynaan u maqlin wax coda oo codkan sharaxaya iga dhex gala. waan ka saaray, isla markaasna waxaan iska dhigaynayaa codkii. marka waxaan doonanayaa halkii ay textigu yaaleen ee qoraalka fiican aan ku ogaa. hadeer waad aragtaa wax qoraala ma laha, laakiin videogu waa u soconaya sidaad halkan ka aragto iyo halkan baad ka aragto. halkan inaan sharaxo oo idhaahdo casharkiina waxaan ku baranaynaa waxa ayaa layga baahanya intaanu qofku guda gelin ama casharkaba wada daawan. text ayaan ku dhufanayaa, isla markaana waxaan raadsanayaa fariiqa qancisa oo aan ku sharaxo ama ka horeysiiyo. halkan tan ayaabaan ku dhufanayaa, waan iska tijaabinayaa intaanan ku waxaynin. markaan arko in fartani ay shaqaynayso, waxaan baadhayaa oo kale far ka qurxoontan oo igu qancisa qaabka iyo socdaalka iyo socodka ay samaynayso. tan sidoo kale waa far si ahaatee iyadu ma soo dejisna oo download ayay u baahan tahay. tiinan baynu ku tijaabino, hadda tan kale aynu eegno. tiinan baynu ku tijaabino oo soo qaadano. waxaynu sidaynu casharkii horeba kusoo baranay markaan soo daraagarayno, fartu waxay imanaysaa halkaa iman kari mayso, laakiin meeshay tiidu ku taalo layer t ayay imanaysaa oo markaas waxay degaysaa layerka loo yaqaano t oo loo soo gaabiyey text. markaad timaado waxaad leekaysiinaysaa meeshaad ugu tala gashay. haddaad rabto ilaa intaas inay gaadho waad kala jiidaysaa, ku dhereerinaysaa, isla markaasna qoraalkiisaad aragto halkaa wuu kaaga muuqdaa. iminka markaan qoraalka aan dul tago, waxaan ku dhufanayaa halkan. markaan rabo qoraalka inaan wax ka bedelo 2 jeer ayaan kliig odhanayaa, isla markaana waxaan samaynayaa horta marka hore si ay ugu muuqato fartaan bedelo. isla markaasna aan ka baabi'iyo qoraalka. aan ku qorayaa ku soo dhawow. isla markaas intaas ayaan halkaa u daynayaa. layerkan kale ee ka hooseeya yar ayaan tegayaa, kadibna isna waxaan ka dhigayaa akhtar. waxaan ku qorayaa casharkii afraad ee editing-ka. intaas ayaan ku qorayaa, isla markaasna waxaan odhanayaa okay. markaan okay yidhaahdaba waxaan dib u celinayaa, kadib waan daarayaa. sida qoraalku u soo baxo ayaan eegayaa. ku soo dhawow casharkii afraad ee editing-ka. markaa qofkan waxa uu ogaanayaa in waxa soo socda ama casharka soo socda
uu yahay editing. haddii uu dhegaysanayana markaa dhegaysto, haddii kalena uu cashar kale uga gudbo, uu yahayna casharkii afraad oo ka horreeyeen casharo kale oo taxane ah ayaa uu ku sheegayaa qoraalkani. isla markaa iminka waxaan tegi doonaa insha allahu tacaala inaan yareeyo ayaan doonayaa. halkan ayaan ku dhufanayaa. sidoo kale halkan waa far, sidoo kale waa yaryarayn karaa farta, waxaanan ka dhigi karaa mid yaryar ayaan ka dhigi karaa. isla markaa waan qaadi karaa farta, waxaanan geyn karaa meel allaale meesha aan doono ayaan u rari karaa. kan laftigiisu waa liidkii xagga dambe ka yaalay, isagana midabkiisa ayaan bedelayaa, waxaanan ka dhigi doonaa kanba. isagana ii rar oo halkaa dambe ii gee. isla markaasna fartan hore uga qaad oo derbiga yar ka dambaysii. iminka fartii bartaas ayay ka soo baxaysaa. fartii iminka bartaas ayay ka soo baxaysaa markaan sidaa idhaahdo. kadibna marka aan daaro fartii waa ay soo baxaysaa. kusoo dhawow casharkii afraad ee editingka ayaan leeyahay. hadba adigu farta halkaa dhigayso waxaad ku qoranayso aday ku jirtaa iyo sidaad u qurxinayso. haddaad rabto inaad tusaale ahaan intaasoo dhan aanay socon oo intaa uun ku koobto, waxaad odhanaysaa dib ayaad u celinaysaa. iminka dhaqso ayay kusoo bixi doontaa. kusoo dhawow casharkii afraad ee editingka. haddii aad rabto inaad gogoyso ama aan markaa in yar socotaba uu qoraalkaasi baabao oo meesha ka baxo, sidaa uu hadeerba uga baxay marka uu dhaafay leeyarkii halkuu ku dhammaanayay, leeyarkii textigu halka uu ku dhammaanayay oo uga baxo, isla markaana uga baabao xaggan shaashadda markii leeyarkiisii dhammaado qoraalka. waxaad rabtaa inaad space yar u dhaxaysiiso, markuu cabaara u maqnaadaba uu haddana dib u soo noqdo, waxaad odhanaysaa halkan ayaad calaamadsanaysaa marka hore inta aad doonayso inaad dhigto. kadib halkan ayaad odhanaysaa copy. isla markaana halkan ayaad tegaysaa, waxaad leedahay paste. sidaad aragtay iminka halkaa marka uu in yar socdaba, kaas waa leeyarkii qoraalka. intaa qoraalka ay marka dhammaato waxuu gelayaa inuu qarsoomo oo leeyarkiisi dhammaado. in yar markuu socdana waxa uu tegi doonaa inuu mar kale uu sameeyo in uu leeyarkii duba bilaamo. markuu leeyarkaa gaadho waad aragtaa. kusoo dhawow casharkii afraad ee editingka ayaad ku aragtaa. isla markaa waxaad u baahan tahay inaad seef garaysato casharkii. tusaale anigu intanba mar rabo waa iska jarayaa intan dambe, kadib intan ayaan iska wada tuurayaa. kadibna intaas ayaan rabaa inaan seef garaysto oo leh ilaa intaas.
kadib waxaan tegayaa export oo dhoofia create video ayaan tegayaa. markaan create video tago waan yar sugayaa abaar, kadib haddii uu mp3 yahay waxaad save garanaysaa oo cod keliya aad ka rabto mp3 ayaa dooranaysaa sumada mp3ga. haddaad rabto mp4 inuu yahay video yahayna mp4 ayaad daysanaysaa. dabeedna waxaad ku qoraysaa tijaabo ama magac ayaad ula baxaysaa. kadib waxaad leedahay halkan halkeebaad ii dhigaysaa. waxaan leeyahay waxaad ii dhigtaa aniga shaashada desktop-ka idhiga ayaan leeyahay. kadib okay baan odhanayaa. export ayaan kadib odhanayaa. sidaad aragto iminka waa uu ku save garaynayaa. macnaha waxay ka turjumaysaa intan yar ee aan samaystay in aan sameeyo oo aan hagaajistay editing-kaygii, isla markaana markaan ku qancay sidaan u edit garayay inaan save garaysan karo oo video ka samayn karo. kadib waxaan sameeyay waxa iminka uu socdaa halka ayuu marayaa. halkana videogii ayaa hadba halka la marayaa ayuu ku muujinayaa. layerkii labaad iminka ayaa halka ka soo baxay sida ku muuqata halkaas. sidoo codku inoo sheegay iminka waa u dhameeyay. waan iska soo wada laabayaa tanna waan soo yar laabanayaa si aan u tijaabiyo codkay videogii ama editing-kii aan tijaabiyay. tijaabo 1 waa ka bixiyay kaasa tijaabo ahaa hore. markaa tijaabo 1 ayuu bixiyay. markaan ku dhufano waad arki doontaa iminka videogii qoraal aan saaray oo ku edit gareeyay. intaasina casharkaasina waxa uu noo noqonayaa sidee ayaa loogu edit gareeyaa videogaaga qoraal oo loogu daraa qoraal looguna qurxiyaa. tusaale ahaan sida hadallada aad leedahay markaad wax ka hadlayso oo kale, iyo weliba magacaaga editing-kaaga aad halkan oo kale ku qori karto. hadba isagoo sidaa usoo baxaya youtube-kaagu ayaad ku qori kartaa. markii uu layerkii dhamaaday haddana dib ayuu soo noqday. sidaas ayaad ku save garaysanaysaa casharkaaga oo aad ku samayn doontaa insha allahu tacaala. intaasi waxaa inoogu dhan casharkeennii afraad ee aynu ku baranaynay Filmora. intaynu ku kulmi doono casharka shanaad iyo sida background-ka looga bedelo ama studio video loo geeyo ayaynu ku baran doonaa kana insha allahu tacaala. idil ahaantiinba waxaan idinku salaamayaa anigiyo howlwadeennada kale ee saa software-ba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.